Iskashab markii aad shay ku muulal-garaynaysid, waxaad u baahan tahay qaab aad shaygaas geesihiisa kala duwan marba dhinac ugaga fiiriso si aad wax ugaga beddesho dhinacaas. Qaab oo waxaa jirto moodalkaada geesihiisa kala duwan aad u fiirin karto marba dhinaca rabto. Waana qalabka loo yaqaano orbit, waxaana laga helaa menu-ga kore. Waana sawirkan oo calaamadda gaduuda iyo cagaarta isku dhex jirto wato. Hal mar klik ku dheh moodalkaaga imaaw. Markaa rabto inaad moodalkaaga ku dul wareegto, waxaa suubinaysaa moodalkaada meel ka mid klik ku dheh. Adigoo kliktaas farta ku hayo dhinacaa rabto u wareeji. Ama kor ama hoos dhinacaa rabto. Sida ugu wanaagsan oo orbit tool-ka loo isticmaali karo ayaa waxay tahay adigoona imaanin menu-ga kore aadan ka dhex dooranin meeshaan kor ayaa waxaa suubin kartaa mouse-kaaga button-ka dhexda ku yaalo wareegsado ayaa farta klik ku siinaysaa adigoo hayo waxaa kuu doorsamayo qalabka orbit-ka. Kadibna dhinacaa rabti u wareeji. qalab kale oo asigana oo waxaa jiro loogu talagalay inaad isticmaasho markii aad moodalkaaga hagaysid. Waa qalabka loo yaqaano pan, waxaana laga helaa menu-ga kore. Waa sawirkan gacanta u eg. Klik ku dheh. Markaa rabto inaad moodalkaaga ku hagto qalabkan, waxaa suubinaysaa moodalkaaga meel klik ugaga sii adoo kliktaas farta ku hayo dhinacaa rabto u jiid. Ogaa qalabkan wuu ka duwan yahay qalabka orbit-ka oo maxaa yeelay sida orbit-koo kale kuma dul wareegi kartid moodalkaaga. Pan-ka qalabkan asiga wuxuu kuu suubinayaa geesaha baa u jiidi kartaa moodalkaaga iyo kor iyo hoos, laakiin kuma dul wareegi kartid sida orbit-koo kale qalabkan oo kale. Qaabka ugu fudud oo loo isticmaali karo pan-ka qalabkan ayaa waxay tahay mouse-kaaga button-ka dhexda ku yaalo ayaa hamar taabanaysaa, kadibna waxaa la qabanaysaa shift button-ka. Ogaa waa muhiim labadan qalab isticmaalkooda mar kastaba. Waa labada shay ugu badan oo Sketchup lagu dhex isticmaalo markii aad shay ku muulal-garaynaysid. Baro isticmaalkooda, practice garee, la qabso si aad u fahanto qaabka loo isticmaalo.